مراية محمود ميري waxaan salaamayaa jamaca meesha jooga baan salaamayaa 114 quraanka kariimka ku salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat qandalo baniye dahabkiina lagu heshi dekeeda haylo samay yalla doonaya inay dooyuhu xirtaan balla doonaya inay xoolaha dejaan balla doonaya cashuurtan laga diyaar inshaalla doonaya dakhligu inuu soo noqdaa baa la doonayaa shicibku inuu daacad yahay baa la doonayaa guddigu inuu daacadashaa baa la doonayaa waa inaynu dadaala danteena guud daryeelkii caafimaad baa la doonayaa sariirihiinan diraa baa la doonayaa awaadi in la soo diyaarsha la doonayaa guddigu inuu daacadashaa baa la doonayaa shicibku inuu daacad yahay baa la doonayaa waa inaynu dadaala danteena guud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحنا سلام يا دنا يرى سحل قانتي إنه يمادانين دقمة قندرة ويجانين باهيدا كجدة دقمة قندرة. كارهان أنا جوا محمد محمود هذا وحكور بحين يا لبعثة كجدة إسبتار كدقمة قندرة. إسبتار كاسو عند ريال هاي تضبيط نصر وبربرة أنتي الدور الله تاحد. waxaan doonaynaa inaan naga gaarsiisaan maamul goboleedka Puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka inay tahay qandara degmooyinka ka hadhay Puntland ee madaxda ka yihiin waxaan ka codsanaynaa dhammaan maamul goboleedka Puntland oo madaxda ka yahay Cadde Muuse iyo wasaaradda caafimaadka hay'adaha caalamiga kuwa NGO-yada ah iyo dadka u dhashay degmada oo danaynaya inay wax ka qabtaan isbitaalkii degmada qandara waxa dhacda maalin kasta joogto ah gabar من وين أما سوى كانوا غانين إنا نكون عبرهم عقل 10 مليون 6 مليون وقعنا بوصاصه هل كان عمل وجهه عمل كسو مشو واحد إلى إسبتال كان يجونه ودقنا قد طويل فرتم تورو هو إسبتال أنا هين إسبتال كله إن أيام هين حل غير أو دريال عاش ماذا أمس إن الله كدقيم واحد مركز عم سنة هم من الولاد كبدنا ومدح كي عدم موسى إنه كرهي خلينا الدقموين Puntland dhammaan inuu ka reebay baan loo aaminsanahay reer qandardana gaar ahaan waxaan kaleeto aad u taabanaynaa wasaaradda caafimaadka ee Puntland inay qorshaysatay inay degmada qandara wax u qaban ma jiro 17 sano wax wasaaradda caafimaadka ka socda ama wasiirnimo ama agaasimaha ama wax kale ha noqdo degmada qandara yimi oo wax noo qabtay ama xataa hal mar soo booqday waxa maraan badda cawda baarga iyo meelaha taan isku soo beetagaanin waxay ka noqdaan meesha laga xatimeesha ka noqdaan waxa dhacay in afar jeer ama shan jeer saar ku hayno in loo soo daaday degmooyinka gobolka bari gaar ahaan dhaweyna inuu soo gaaray meesha laga muudiye ama dibir iyo hawla inuu tagay eergaal la gooyay ka baxay hadda waxaan leeyahay ka codsanaa maamul goboleedka Puntland ka codsanayna gaar ahaan madaxweynaha inuu tixgelin gaarsiiyo degmadaas 17 sano aan lahayn wax daryeela intaasaan doonay waxaan wada faraynaa gaar ahaan madaxweynaha gaar ahaan wasiirka caafimaadka wasaaradaha kaleeto dhalinyarada mutacalimiinta dadka degmada u dhashay inay si gaar ah isbitaalka degmada qandara wax looga qabto oo loogu daro isbitaalada degmooyinka kaleeto oo Puntland oo sidaajin intaasaan ku soo gabagabeeyaa waa salaamaad heesaas nabadgelyo
qaybaha ardayga baashe su'aasha labaad waxay tahay faa'iidada lugaha aynu ku socono baa waxaad sheegaysaa faa'iidadooda lugaha ay ku socono waxaad sheegaysaa faa'iidada ay leeyihiin baa sheegaysaa somaad waxaa ku yidhi faa'iidada lugaha su-aal saddexaad sheeg faa'iidada maqalka soo madaxa ya faa'iidada maqalka baa sheegaysa su-aasha saddexaad afraad wey su-aasha afraad way xamad in akhiri maqal xamdir tadrib axmed tadrib xagga tadrib dugsiga iskuulkii magaalada qandala weeye waxaan jeclaysanaa inaan wax ka sheegno maadaama aanu safarkan soo gallay iskuulkan waxaa la dhisay 1950kii waagii talyaaniga maaragtay isticmaalka u yimi kadibna muddo badan arday Soomaaliya ka baxday qaarkood waxay noqdeen wasiirro qaran qaarkood waxay noqdeen agaasimayaal guud dad badan ayuu iskuulkan soo saaray laakiin nasiib darro intii burburka ahayd iskuulkan aad ayuu u dayacmay wax weyn oo laga qabtana ma jiro community-gu inkastay dadku dadaaleen haddana iskuulku aad iyo aad buu maaragtay u hooseeyaa ardaydeena waxa weeye markay waayeen macallimiintii iskuulka primary-ga iyo intermediate-ga qaarkood waa ka tageen ama Boosaaso ama magaalooyin kale yaadeen waxa marka yaani xaq ah in community-ga iyo maamulka iyo wasaaradda tacliinta wax ka qabtaaneen waxbarashada degmada Qandala oo aan ahayn kaliya iskuulkan 42 tuulo ah 42 tuulo wax badan ayaa iskuul leh wax loo dhisay waa jiraan laakiin macallimiin ma leh iskuulana ma leh saadalaada compulsory dawladda waxa xaq ku ah inay tacliinta wax ka qabato oo iskuuladan siba degmadan oo qadiima iskuuladeeda wax laga qabto oo iskuulka la dayactiro ardayda ma taqaana yani meelo fiican wax ku dhigtaan sida iskuulka hadda galaaskan oo kala jajabay meel caafimaad ku habboon in loo dhiso oo la dayactiro ama hay'adahana loo sheego iska wareegaya sida UNICEF wax weyn qaban inay wax ka qabtaaneen tacliinta magaalada Qandala iskuulada wax ka qabtaaneen taasna waxa mid waajib oo xaq ah oo ku ah maamulka intaas ayaan rabnaa dadka inaan u sheegno iskuulkan iyo taariikhdiisa iyo waa sheeko dheer weeye laakiin iskuulku hadda sida u jeedaan halka galaas kaliya ayaa wax laga dhigayaa intii kale waa xiran yihiin meel kale waa xiran yihiin sababtoo ah wasaaradda macallimiin ma keenin macallimiinta hadda joogta macallimiin community-gu keeneen waa iska u qabso marka waa nasiib darro maanta qarnigan ku jiro 2007 inaan degmadaanu iskool ay lahayn oo billahi tawfiiq